dee haddaad jidka ilaah ku toosan tahay ilaahay waxaad ka rajaynaysaa wax wanaagsan laa taqnadu min raxmatillah ilaah naxariistiisa kama quusanayno ilaah naxariistiisa lagu janno tagaa laakiin at least niyaddaa ku dhisan ilaah baa ku xidhan tahay laakiin haddaadan ilaahay ku xidhnayna waxaa rabtid aada walaaqanaysid maskaxdaadina dee maskaxdii qurunsaneed ay tahay waxaa waaye nolosha adduun iyo aakhira waa ka dhacday muhiimadan u shaqaysanayna markaa ma adduun baa dadkii waxay hadda ku haystaan midig xitaa bidixdii waan ku darnay laakiin sida laynaga rabaa waxay tahay inaan midigta ku qabsano aakhiradeena ku ilaashano bidixdana adduunyadeena aan balansi garayno markastaba nolosha aan isku dheelatirno waad aragtay qofku markuu baaskiil wadaayo hadduuna tababarnayn kolba dhinac buu u dhacayaa laakiin hadduu tababaran yahay si fiican buu u wadayaa noloshuna waa saas oo kale maalin kasta haddaad noloshaada daily life-ka maalin kasta qaabkaad u nooshahay hadday tarbiyeysan tahay ay jadwalaysan tahay baaskiilka si fiican baad u wadaysaa haddayna jadwalaysaneen mar dib baa u noqonaysaa mar geesgeesa u dhacaysaa marka halkan waxaan ku haystaa dhowr tusaale ayaan ku haystaa tusaalahan ku haysto waa qalinkaas iyo waxaan ku haystaa remote iyo waxaan haystaa nal iyo waxaan haystaa wiper wax lagu tirtiraayo maskaxdii baan sharaxi rabaa marka dad waxaa jira in far waaweyn wax loogu dhigo jecel iyo dad su-aal sadar muuqda su-aal ka dhan waxa dad mar u sheegtid ilaahay xikmad siiye oo wixii qaadan oo fahmaya iyo dad waxaa sheegaysid baan fahmaynin oo ilaa example aad u keentid waxaan maxaa waay dhahayaan marka maskaxdeena ayaan kan ka soo qaadayaa maskaxda bani aadanka marka ilaahay uu abuuray oo ilaahay jirkeena dhexgeliyey culimmadu waxay dhaheen haddii maskaxda intii lasoo saaro maskaxda bani aadanka banaanka la keeni lahaa waxay noqon lahayd baa layidhi qoraxdan weyn ayaan u jeedno oo ilaahay abuuray makhluuq ilaahay ka mid ah ayaa demi lahayd iftiinkan maskaxda ayaa qoraxda qarin lahaa qoraxdii ayaa qarsoomayso waxaa qarinayso maskaxdii nuurka iyo iftiinka ka baxaya qarinayso waxaa laga wadaa marka micno ahaan maskaxda inay power inay awood leedahay inay leedahay daaqad ay wax kasta ku qaadi karto maskaxdaas marka hadday qurunto oy wasakhowdo dee bes nolosha waad ka dhacday waa daaca qurantay daaca quran waxaa waaye markaad cunto kan noloshii aad ama calooshii aad sii weysid nafis kan ku gur calooshii way dabiri halkaasii tegi maanta dhan qurmuun baa afkaaga kasoo baxaya waa daacsanaysaa qof hadduu kusoo ag istaago daacsatid xitaa uf waa kaasii dhaqaaqaya maskaxdii marka way qurunsan tahay looma jeedo laakiin maskaxda inay quruntay maxaa lagu garanayaa habdhaqankaagaa lagu garanayaa action speaks louder than words wax kasta ood sameynaysid waxaad ku hadlaysid waxaa ka awood badan dhaqankaad ku dhaqmaysid qof haddaad wax kasta u sheegtid laakiin dhaqankaagii waxaad sheegaysa islahayn qofka dhaqankaagu qaadanaya ma qaadanaya waxaad afka ka sheegaysid bimacnaa maskaxdaada waxa qashin ku jira iyo xasadka ku jira iyo uqdada ku jirta iyo murugada ku jirta iyo frustrationka ku jira iyo problemka iyo buuqa wejigaaga ka muuqanaysaa caafimaadkaaga kore ka muuqanaysaa qof waxaa noqonaysaa bahdilan maqaarkii ka dilmay isagii dhan aan faraxsanayn hadduu qof la kulmaayo ma siinaayo soo jiidasho fiican ma siinaayo haddii la wada hadlo xaaladaada ka warna hadduu la dhaho 100 program oo dhibaataysan oo xal marka adiga aadan u heli karin buu qofayaa hadduu meel tago maanta dhan wuu calaacalayaa wuu eed sheeganayaa waa haddii kale waa qof maanta dhan caytamaya kii hebel ahaa tii hebla ahayd haddii kale waa qof kibir badanoo maanta dhan isla weyno aniga ah in hebel ah anigoo kana anoo lacag haystaa anoo darajada jooga waa faan buu ku jiraa maanta dhan haddii uu yahay qof dadka wax tara hebel baan kan taray hebel baan kan u sameeyey hebel baan kan u sameeyey waa dad aan shukra lahayn waa dad maxaan ku dhahay wax kasta u qabatid haamaanin soo taagan inay adigu ku cunaan un bay rabaan dadka ayaa wax deeqsiin kara baba hadalka dee ma joogsanayo marka maskaxda qurunka maaha keliyata inaad tasbiix iyo salaad inaad khalkhaladid maaha carabkan maanta dhan balbaladahayo lalabada mantaga kasoo baxayo ayaa waxaa la rabaa carabkan inaad kantaroosho oo wax fiican aad ku hadasho qul khayran aw liyasmud ama wax khayr qabo ku hadal ama iska aamus carabkan haddii aad kantaroosho maskaxda way caafimaadaysaa tartiib ay caafimaadaysaa marka
maanta dhan waad isla qabweyn tahay isla weynida ilaahay baa u sugnaatay annaga ummad ducafo ah ilaahay abuurtay ayaa nahay hal far haddii laynaga qabto taaheena iyo murugadeena iyo calaacalkeena lagama seexan karo ma dhammaystirnin wax kasta ood qabanaysidna nusqaan baa ku jirta because bani aadanka siduu ilaahay u sameeyey ayaa saasa waa nusq ninba ninka kaluu kabaya waa layskabaya maskaxda quruntay wax kasta ku dhex jiro ayu nooc ayaa ku dhex jiro laakiin ilaahay wuu asturay alxamdulilah rabbil caalamiin maskaxdeena haddii banaanka la keeni lahaa subxaan allah dadku way kala carar lahaayeen alla kan aanu uqdad ii qaba alla kan aanu imaagan yahay cid is aragtay ma jiro lahayn marka maskaxda ilaahay wuu asturay wixii kugu jiro aduu kugu dhex jira saas darteed buu ilaahay aayad quraan wuxuu ku leeyahay dadka wixii ayagu isku dhex sameynayaan oo afkooda kasoo baxaya dawaahirka ayay xukumayaan ilaahayna wuxuu ku xukumayaa wixii qalbiga ku jiro marka fiiri awoodda ilaahay ayaa lagu sheegay oo lagu dhahay ilaahay wixii qalbigaaga ku qarsoon iyo wixii daahirka banaanka yaala kulli ilaahu daalacanaya ilaah wax ka qarsoon ma jiro marka anaga waxaan daalacanayna oo fiirinayna wax ka sheegaynaa hebel sana u socotay hebel kana xidhnayd hebel kan buu watay hebelkii kale intaasan sheegi karnaa laakiin ilaah makhluuqaad ku abuuray sabca samaawaad ilaa dhulka wix kasto ilaahay abuuray biqudratillah ilaahay baa awoodiisa ku maamulaya wixii naga qarsoon iyo wixii nagu dhex jiro aanan ogeyn oo qalbigan ka hadlay uu kamid yahay iyo wixii kale u jeedno kulli ilaahay uu daalacanaya marka qalbigan ilaahay daalacanayo ilaahay isa siiyay awooddaas inuu isaga bis daalacdo haddii ilaahay ugu talagalay inuu banaanka keeno subxaan allah dadka dhan wada wasakh ay ahaan lahaayeen in yaro marka ilaahay u naxariistay oo qalbi wanaagsan oo ilaahay ku xidhan oo dadka wanaag la jecel oo horumar dadka la jecel oo wax kasta haday halaabaan cafiskooda ilaahay dartii ku cafinaya haddii ay wax helaan waxoodii wax kala qaybsanaya hadaad wax haysatid ku duceyn ilaaha ku barakeeyo ku dhahaya haday wax ka xun yihiin ma sha Allah tabarakallah waxan ba ka xun walaale iska sax iyagoon ku ceebaynin ku sheegaya waa dad yar waay dadka laakiin hal eray haduu afka ka soo baxo sarifaya hadal wanaagsan oo ku hadashay xumato u qaloocinaya qalbiga dhaawacay u geysanayso waxaad u maleynaysaa inaad cibaadeysanaysid ilaahay aad ku xidhan tahay astaghfirullah alxamdulillah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim ilaahu idab dhaaf sadaqan bixiye xajkii baan tagay cimraan tagay caruurteydii baan wax kasta u sameeyay adii waxaad isleedahay ajri buurti uxud baa gadaasheeda ku rastaysan ma sha Allah waan shaqaysanaya laakiin speaker-kii aa dhacay sorry laakiin kalaam yar oo afka ka soo baxay ayaa waxaas inay ku burburayaan qof bad wax siisay qofkii baa la arkay asagoo soo yara kabanayo ma sha Allah walaa qof hebel uu fiican yahay maxaad ku ogtahay wax yaani malaha maxaa la dhahaa malaha abaal male waxaan u taray kanaan u sameeyay waad mana sheegatay waxa kugu jiro kibir anaaniya ana saacad kasta waxa taagan tahay ana ma ka dhamaanayso waliba fartaada xitaa ka xaragoono qalin yar oo qaali aad soo qaadano aniga ana sameeyay ani mooyaya waxaan sameyn karaa wax yar baa dhacay uqdad kana leeyri kii kala leeyri waa leeyri oo de subhanallah tii xanahayd tii xaasidnimo ahayd tii uqdad ahayd maskaxda yareed bay ku xareysan tahay maskaxdan ilaahu naxariisto tusaale marka ilaaha noo wada naxariisto kaas waa automatic kan waa remote key maskaxda markay qurmayso maskaxda saas bay u iftiinsan tahay iyadoo saas u nuuraysa ayaa marka wasakhdii hadaladii aan ka soo sheekeynay qurunkii aan kala guraayay maskaxdii soo u dhaawacaya ayaan idin tusinaa marka waa tusaale yar ilaaha nagu anfaca casharkan insha Allah wakaas maskaxda saas ay u qurmaysaa qurunkan marka waa erayada afka ka soo baxaya iyo xasadka iyo xiqdiga iyo xumaatada kugu jiro oo qofka walaalka ilaahay abuurtay aadan u quureynin haduu qofka ilaahay sharaf siiyay wanaag siiyay aqoon siiyay garasho siiyay cizi siiyay ilaahay baa waxaas dhan qofkii siiyay adi maadan siin laakiin adiga uma quureyso xasad ba tahayo qashin kana kugu dhex jiro kana waa qayb kale يعني waxaa fiicneed kala nooc inaan soo qaado laakiin macal asif laba nooc baan soo qaaday laakiin inta fahmaysa insha Allah